kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Ilwareed News warbixin xasaasi ah. Wariye caan ka ah dalka Pakistan oo toogasho lagu dilay magaalada Nairobi. Wariye caan ah oo u dhashay dalka Pakistan ayaa toogasho lagu dilay gudaha dalka Kenya. Waxaa sidaas maanta sheegtay xaaskiisa bilo un kadib markii uu ka soo cararay dalkiisa si uu uga baxsado in loo xiro eedeymo la xiriira rabsho kicin. Arshad Sharif ayaa si joogto ah u dhaleeceyn jiray militariga awoodda badan ee Pakistan, wuxuuna taageero u ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan, kaasi oo bishii Abriil kalsoonida kala noqday baarlamaanka dalka Pakistan. Waxaa maanta waayay saaxiib, say iyo suxufigii aan ugu jeclaa sida ay boolisku sheegeen waxaa lagu toogtay dalka Kenya. Waxaa sidaas Twitterka ku qortay xaaskiisa Javeria Sidiqo. booliska dalka Kenya ayaa sheegay in la rasaasayay gaariga uu saarnaa Arshad kadib markii uu ku guuldareystay inuu joogsado bar control meel u dhow magaalada Nairobi. Booliska ayaa sheegay inay baarayaan dhacdadan. Bishii August, Arshad ayaa wareystay siyaasiga sare ee mucaaradka ah ee Shahbaz Gill, kaasi oo sheegay inay saraakiishii hoose ee ciidamada aysan qaadan amrada ka hor imaanaya rabitaanka aqlabiyadda. hadalladaas ayaa horseeday in telefishinkii laga wareystay muddo kooban hawada laga saaro, isla markaana waaran soo xilitaan loo jaro Sharif oo dalka ka tagay. kanaalka ARY ayaa mar dambe sheegay inuu xiriirka u jaray wariye Arshad. Gill ayaa la xiray kadib wareysiga. Sidoo kale cambaareynta Khan ee ka dhanka ah nidaamka garsoorka ayaa hogaamisay in isagana la xiro uuna ka soo muuqdo maxkamad. Pakistan ayaa xukumayay militariga inta badan 75 sano ee taariikhdeeda, isla markaana dhaleeceyn ka dhan ah saraakiisha ammaanka ayaa loo arkaa qadcas oo aan la gudbi karin. wariye Arshad Sharif wuu shahiiday kadib markii lagu toogtay Kenya. booliska dalkaas ayaa baaraya. waxaa sidaas lagu qoray Twitterka ARY TV. wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan ayaa xaqiijisay dhimashada saxafigaasi. Pakistan ayaa kaalinta 157 kaga jirta 180 dal oo lagu qiimeeyay heerka xorriyadda saxaafadda. qiimeyntaas oo uu sameeyay ururka suxufiyiinta aan xuduudaha lahayn, Reporters Without Borders. dhinaca kalena dowladda Britain oo yeelatay ra'iisul wasaare taariikh cusub dhigay. wasiirkii hore ee maaliyadda Britain Rishi Sunak ayaa isniintii maanta ah ku guuleystay hardankii loogu jiray hogaanka xisbiga Conservative-ka Britain, wuxuuna noqonayaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee aan cadaan ahayn. Penny Mordaunt oo ahayd qofka kaliya ee la loolamayay kadib markii uu tartanka ka haray Boris Johnson ayaa ku guuldareysatay inay hesho magacaabista 100 xildhibaan oo lagama maarmaan ahayd. Rishi Sunak ayaa sidaas darteed loo doortay hogaamiyaha xisbiga Conservative-ka. waxaa sidaas yiri Graham Brady oo ah abaabulaha baarlamaanka, ayada oo Mordaunt ay taageero buuxda u ballan qaaday Sunak. guusha Sunak oo 42 jir ah ayaa timid kadib go'aankii uu Johnson axadii uga haray inuu sameeyo soo rogaal celin siyaasadeed. toddobaadyo un kadib markii ay Liz Truss uga guuleysatay hogaanka xisbiga Tory-ga, Sunak ayaa sameeyay isbedel nasiib oo cajiib ah. Sunak ayaa ahaa xildhibaanka kaliya ee helay wax ka badan taageerada 100 xildhibaan, taasi oo meesha ka saartay in la qabto codeyn lagu kala baxo. wuxuu helay taageerada 200 oo xildhibaan oo ah wax ka badan kala bar xildhibaanada Conservative-ka. Sunak ayaa ah maalqabeen Hindu ah oo waalidkiisu ay kasoo jeedaan India iyo Bariga Afrika. guushiisa ayaa timid maalin dadka Hinduuga ee caalamka ay u bilaabantay 5 maalin oo ah ciida Diwali oo ah dabaaldeg loo sameeyo guusha wanaagga ka gaaray xumaanta. xubnaha xisbiga Tory-ga ayaa ku qasbanaaday inay qabtaan doorashadii hoggaan ee labaad muddo 3 bil gudaheed ah kadib markii ra'iisul wasaare Liz Truss ay ku dhawaaqday iscasilaad kadib kaliya 44 maalmood oo ay xilka haysay. Truss oo taageero buuxda u ballan qaaday Sunak ayaa bishii September bedeshay Boris Johnson kadib markii xubno ka mid ah dowladdiisa oo uu hogaaminayay Sunak ay gadoodeen isna casileen.